السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamay saaxiibadeyda sharafta leh. waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago sheeko yar oo gaaban oo dhex martay libaax iyo maroodi, oo libaaxuna matalayo Puntland, maroodiguna uu matalayo Somaliland. libaaxi baa daandaansiga bilaabo, wuxuu yidhi, waar maroodiyow, maxaa ku keenay degaankayga? maroodigii baa ugu jawaabay, waaryahe, war degaan aad leedahayna garan maaye, hawada iiga baxa, haddii kale cagtaan madaxa kaa saaraya oo muuqaaga waa la waayi doonaa. libaaxi baa yidhi, bow waa la tahay, aniga soo garan maysid. libaax baa la yidhahdaa boqorka habar dugaag, aniga weeye bow wallaahi tallaaban kaa qaadaya haddaadan ka dhaqaaqin meesha, inaan sarartaada weyn jiljilan doono oo saaka quraac ka dhigan doono bow. maroodigii baa isna wuxuu ku jawaabay, jaw, waaryaah, malaha okiyaala muraayadaha kugu jiraan u malaynayaa, waritaalkayga intuu la egyahay soo arki maysid, duudkayga iyo awoodda iyo itaalka ilaahay isiiye soo uma jeed. waryaah, halkaa cagtaa kaliya haddaan madaxa kaa saaro, gebigaaga waa lagu waayayaa, ciiddaan kula simayaa, aqbaha dhakada khawisa. libaaxda, aribow waa kula tahay, aribow waa ismacnaysa wallaahi, saaka quraacdeedu waa adiga haddaadan meesha ka dhaqaaqin. haddaba sheekadan yar ee gaaban, habar dugaag meesha ma aysan joogin, laakiin